magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland ayaa sanadihii dambe laga dareemaya isbeddel aad u weyn iyadoo magaalada ay soo martay burbur xoog leh sida dagaaladii sokeeyey iyo gacan ku hayntii ururka Al-Shabaab. Bilicda magaalada qurxoon ee wadooyinka ayaa ah kuwa aad ku soo jeedinaya. Waxaa laga hirgeliyay magaalada hoteelo aad u qurux badan oo ay indhuhu soo jeedinayaan, kuwaas oo lagu caawiyo badan ay dhalinyaradu ay dalxiisaan u yimaadaan. sidoo kale waxaa laga hirgeliyay garoon aad u weyn oo lagu ciyaaro kubadda cagta. sanadka markuu ahaa 2013 magaalada Kismaayo waxaa gacanta ku dhigay oo la wareegay maamulka Jubbaland oo hogaaminayo ilaa hadda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. la wareegada kadib waxaa si rasmi ah loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada, iyadoo laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo tiro badan sida goobaha waxbarashada, caafimaadka, socodka gaadiidka. waxaana shacabka durba lagala dardaarmay in ay ciidanka kala shaqeeyaan sugidda ammaanka magaalada.